dowladda federaalka ah ee Itoobiya ayaa si rasmi ah uga hadashay diyaaraddii maalinnimadii shalay laga celiyay hawada sare ee Somaliland ee la sugayay inay ka soo degto garoonka diyaaradaha Cigaal ee magaalada Hargeysa. Malas Alam, afayeenka wasaaradda umuraha dibadda ee dowladda federaalka ee Itoobiya, ayaa saxaafadda la wadaagay hadalkan. Itoobiya iyo Soomaaliya ma jirto wax iska bedelay xiriirka ganacsiga iyo duulimaadka rayidka. wax walba waa sidoodii. waxaa jirtay arrin shalay dhacday. arrintaasi waa la xalliyey. duulimaadku wuu socdaa. Addis Ababa iyo Hargeysa iyo Addis Ababa iyo Muqdishona xidhiidh ayay leeyihiin. arrinta ganacsiga waxba iskama bedelin. mana jirto wax isbeddelaha oo ku yimid umuuraha diblomaasiyadda ee labada dhinac. Malas Alam, afayeenka wasaaradda umuraha dibadda ee dowladda federaalka ee Itoobiya, ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin in wax walba oo khilaafa lagu xalliyo dhinaca wada hadalka iyo waliba diblomaasiyadda. dhinaca kale, afayeenka wasaaradda umuraha dibadda ee Itoobiya ayaa cambaareeyay war maalinnimadii shalay ay soo saareen ururka jaamacadda carabtu, waxaana uu yidhi maaha mid aanu aqbalayno. Malas Alam, waanu garanaynaa ururka jaamacadda carabtu cidda uu u janjeeray iyo halka uu u socdo, balse waxaanu soo jeedinaynaa in Afrika ay xallisato wax walba oo khilaaf oo dhexdooda yaalla. waanu garan karnaa xidhiirka ay leeyihiin Masar iyo jaamacadda carabtu waa shilin labada dhinac isaga mid ah, ayuu yidhi afayeenka wasaaradda umuraha dibadda ee Itoobiya. waxay ku kala duwan yihiinna lama yaqaano. war-saxaafadeed uu soo saaray wasiirka umuraha dibadda ee Masar ayaa waxa uu ku tilmaamay mid aan micno badan samaynin oo aan waxba soo kordhinayn. waddamada bariga dhexe oo ay Masar ugu horreyso, marka ay dekad ku yeelanaysa meel kale, annaga maxaa noo diidaya, maxaase ceeb ka dhigaya inaannu dekad yeelanno? Somaliland waxaa jooga dalal badan oo caalamka ka mid ah. jiilka dambe ee Itoobiya ahna waa in loo sameeyaa horumar iyo meel ay ku waaraan. Itoobiya ayaa heshiiskii ay la gashay Somaliland waxay ku tilmaamtay cadaalad iyo weliba horumar. hadalka waxa uu ku soo xidhay afayeenka wasaaradda umuraha dibadda ee dowladda Itoobiya. waxaanu u baahannahay in aanu gaadhno badda cas. Itoobiya waa inay cagta geliso biyaha badda.